si aan wiilka saaxiibkay isla soconay qarxii marka sidaas awgeedo marka baaruurta la simnaaday oo qarxa dhacay waxaan ka wareeray anoo dhulka jiifo oo dhinacii holac iyo dab yaalo waxaan ishaada aan qaba karin ayaa ka muuqata dhaawaca iyo meedka lama kala bixi karo meed inta haddeertaan aan arkay yaraan 20 way ka badan yihiin qofka ugu calool xumeedo aan maxayd arkay qof asigoo nool ee darbiga ku soo dumay gacantiisa kaliya saan u muuqato ayaan meeshii aan faagnay aan ka soo qof nool oo caafimaad qabo oo naqaska ku dhagay oo dhul hoostiisa ku jira ayaa saacado ka hor laga soo saaray markaasuu inta qufacay uu istaagay ayuu yidhi taleefankayga awreerkayga wacan soo farxad ma taas inta aan ka gaarayno ilaa qofka ugu dambeeya aan ka soo helayno dadaalka waa sii wadaynaa dadkii meeshaasi eheladoodii ee dadkooda ku waayay oo nolol iyo geeri aan lagu haynin waxaa ka mid ah walaalkaygii way la dhashay oo lagu magacaabo Axmed Qadar runtii waa xaalad aad iyo aad u adag waxaan ugu yeeri karnaa musiibo qaran qarxii shalay foosh xumaa oo ka dhacay halkan ay dadka badan ay ku lacdeen taas waxay caddeynaysaa qolooyinka horarka ah oo nabadiidka ah oo al-shabaab inaysan u naxayn cidna